halkani waa Kasmo waxaan qaada dhigi doonaa barnaamij aan hore idinku ballan qaadnay ee ahaa inaan soo gudbino 6 qodob oo kamid ah qodobada ugu muhiimsan ee asaasiga ah waxyaabaha ka caawin karo in aad hoos u dhigto xiriirta caloosha ama cadiinta caloosha haddaba ila soco 6 qodob ee muhiimka ah ee aan doonayno inaan ku faaqiidno waxyaabaha ka caawin karo in calooshaada aad hoos u dhigto qodobka ugu horeeya ee ugu muhiimsan hoos dhigi karo calooshaada xiriirka gasha ayaa waxa uu yahay soonka sidaan wada ognahayba waxaa jira 2 nooc oo soon ah soonkii nabiyullaahi daawud oo ahaa soonka maalin in la soomo maalinna la afuro iyo soonka nabi maxamed ee ahaa maalinta khamiista ah iyo maalinta isniinta ah labadan soon waxay ka caawin doonaan inay hoos u dhigaan cayilka iyo inta gasha caloosha iyadoo ka caawin doono inaad appetite-kaaga xadido sidoo kale jirkaagana kor u qaado waxyaabaha sunta ee jirka raashinka galayna ka baabi'iso caloosha xadaaf ziyaadada ee gashayna baabi'iso miisaankaaga hoos u dhigto arrimahan oo idil waxaa ka caawinayo inaad soonto 2 nooc inaad u soonto oo sunno ah marka laga soo tago waajibka sunnada koowaad waxay tahay sunnadii nabi daawud iyo sunnadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu yiri sidaan wada ognahayba soon waxa ugu fadli badan soomu daawud nabi daawud soonkiisa ayaa ugu fadli badan oo ahaa soomu yawmin wa fidru yawmin maalin la soomo maalin la afuro nabigana waxaa sunnadiisa ahayd in maalinta khamiista ah iyo maalinta isniinta ah oo usbuuci ka soomo waxaa fiican in soonkaas sameeyo si uu u dhimo dufinta calooshiisa halkan ayaa waxa uu caawinayaa in uu hoos u dhigo appetite qofka ama cunitaanka raashinka zaidka ah oo hoos u dhigaya appetite qofka sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa tamarta jirka wuxuuna baabi'inayaa suntii raashinada ku jirtay sidaa darteed wuxuu baabi'in doonaa cayilka xadaafka ah ee gala caloosha ee xalka iyo maarada la waayay qodobka labaad hurdada waliba hurdada qotada dheer leh sida aan wada ognahayba hurdada waxay ka mid tahay waxyaabaha aad ugu wanaagsan caafimaadka jirka dejiyo stresska haddaba hurdooyinka caadiga ah waxaa loo qaybiyaa 2 qayb oo ah hurdo fudud iyo hurdo qoto dheer hurdada qoto dheer leh waxay timaadaa marka laga tago cishaha ama 2 saac habeenimo ka bilaabato ilaa iyo 8 saac habeenimo hurdada qotada dheer leh xilligaas ayay timaadaa sidaa darteed marka waxaa weeyaan qofku waxaa fiican inuu qabaysto biyo qabow 2 saac oo kale kadibna uu seexdo xilli hore oo 2 saac kadibna uu soo kaco xilli hore oo ah 8 saac 9 saac ugu dambeyn 10 saac haddaba hurdada waxay ka mid tahay qodobada ugu muhiimsan ee asaasiga u ah in aad miisaankaaga hoos u dhigto waliba miisaankaaga caloosha waxaan ognahay in caloosha uu ziyaadiyo stresska hurdada qotaha dheer leh ama hurdada dhiibka ahna ay keento in calooshaada xeer badan aysan fariisanin oo la burburiyo sidoo kale qofku waxyaabaha muhiimka ah oo miisaanka inuu dhimo caawin karo waxaa ka mid ah inuu qaato vitamin supplement oo ugu horeeya vitamin D-ga vitamin B1-ka iyo zinkiga qodobka saddexaad waa khudaarta sida aan wada ognahayba khudaarta waxay ka mid tahay waxyaabaha caafimaad ahaan aad loogu taliyo ee dhaqaatiirtu iyo dhammaan howlwadeennada caafimaadka ay aad ugu taliyaan dadka qabo dhiig la'aanta iyo dadka ka cabanayo dhimin la'aanta sidaa darteed cunitaanka khudaarta beddelkii aad cuni lahayd raashinada junk foodska loo yaqaano ama raashinada la shiilo ama raashinada hilibka iyo waxaas ku jiro ama aad cuni lahayd raashinada halis gelin kara caafimaadkaaga waxay ku sahlaysaa in aad dhinto miisaanka calooshaada sidoo kale miisaanka jirkaagana ay ka caawiso wuxuu leeyahay waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah inaad cunto khudaar fara badan oo aad la qaadato borotiin kadibna aad joojiso qaadashada dufinka sida hilibka baruurta waxyaabaha la xiriiro sidoo kale waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah inaad hoos u dhigto cunitaanka carbiska ama carbohydrate wax loo yaqaano oo ay kow ka tahay rootiga muufada canjeerada baastada bariiska iyo wixii lamid ah adigoo ku bedelanayo cunitaanka khudaarta cagaaran iyo miraha wanaagsan kana waa qodobka afraad ee ka caawin karo inaad hoos u dhigto caloosha xiriirta gasha ama caloosha weynaata ama dhimitaanka caloosha xiriirta caloosha gasha sidaan wada ognahayba exercise-ka ama jimicsiga waa waxa ugu muhiimsan ee jirka u fiican jimicsiga muslimiinta ugu wanaagsan ee la sameeyana waa salaadaha sidaa darteed haddii aad dukato 5 salaadood oo si sax ah aad u dukato adiga oo ku xaadirayo masaajidda waxay keeni doontaa ama ka caawin doontaa in aad hoos u dhigto xiriirta caloosha sababtoo ah aaditaanka masjidka iyo kasoo laabashadiisa waa exercise sidoo kale waxaa exercise ah dukashada salaadaha waa exercise haddii 5 salaadood ay ku yaraato oo aad ku darto salaadaha sunnada ah iyadana waxaa weeye exercise dheeri ah oo keeni karo kaana caawin karo in jirkaaga cayilkii faraha badnaa oo ka yaraado waxaa la ogaaday oo baaritaano badan u ogaaday dadka guryaha ku dukado exercise badan maysan samayn dadka guryaha ku dukado dadka mehradooda ku dukado iyo dadka aan salaadaha xaadirin in ay yihiin dadka ugu badan ee caloosha ka cayilo dadka ugu badan ee
maaragtay cadiinta iyo cayilka dhib ku qabo kadibna raadiyo gym ay tagaan iyo exercise ay raadiyaan. waxaa kugu filan oo keliya 5 salaadood inaad dukato kuna darto salaadaha sunnada ah. taasi waxay kaa caawinaysaa inaad hoos u dhigto miisaanka calooshaada iyo miisaanka jirkaaga guud ahaanba. sida aan wada ognahayba salaada waxay ka kooban tahay qaybo fara badan oo ugu horeeyo qaybta sujuudda iyo qaybta rukuucda. labadaas qayb oo aad muhiim u ah caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jirka. sida aan wada ognahayba marka aad ka sujuudid xubnaha ugu horeyso rukuucda oo ragcada koowaad ah ragcada labaad saddexaad waxay qaadato rukuucitaanka wuxuu kaa caawinayaa in jirkaaga qaybaha kore ay sameeyaan jimicsi dhammaystiran marka laga soo tago istaaga salaada. sidoo kale waxaa la ogaaday sujuudda inay keenayso faa'iidooyin waaweyn oo ugu horeyso markii qofka uu sujuudo in dhiig badan maskaxdiisa uu tagayo kadibna caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo caafimaadka maaragtay waxaa waaye maskaxda aad ay kor ugu kacayo. sujuudda oo dheerayso waa faa'iido maskaxdaada ku soo aroortay sida caafimaadka baaritaano badan oo la sameeyey lagu ogaaday. haddaba sujuudda oo badiso waxay kaa caawinaysaa laba shay oo ah in ilaahay aad ugu dhawaato lambar 2 in maskaxdaada iyo caqligaaga ay si fiican u shaqeeyaan. sida aan wada ognahayba maadada cortisolka waxay siyaadisaa cayilka galo caloosha cayilka galo dhabarka sidoo kale cayilka aan loo baahnayn oo dhan waxaa siyaadiyo cortisolka oo ziyaado si aad u yareyso cholesterolkaaga ama cortisolka si aad u yareyso maadaama cortisolka laga soo saaro kiliyaha si cortisolka u yareyso waxaad u baahan tahay inaad socod dheer samayso. sidoo kale physical activity waa inaad samaysaa. way ugu horeyso salaada aan sheegaynay way ku xigto inaad socod samayso masaajidka aad aado. waxyaabaha miisaankaaga hoos u dhigayo ama cayilka caloosha kaa yareena waxaa kuwa ka ah oo ku caawin doono in aad samayso long walk. waxaan ognahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu amaanay in masaajidka dhaadheer la aado si ajir dheer loo helo ajir badan loo helo. waxaad ogaataa ajirka dheeriga waxaa kuusii dheeri ah inaad helayso cortisolkaaga oo hoos u dhaco. sidoo kale waxaa siyaadayo activity badan sameynaysa maadaama aad jirkaaga dhaqaajinayso activity badan sameynaysa cortisolkaaga hoos u dhacaya. taasi waxay hoos dhigaysaa marka cortisolkaaga waxayna kor u qaadaysaa jaaniskii ahaa in aad ka yaraato calooshii xeertii caloosha ku saabsaneyd iyo in ay badato caafimaadka jirkaaga uu bato oo dufin qaldan iyo dufin aad ku dhibi doonto meesha laga saaro. maxaa yeelay waxaan ognahay dufinta aan kusoo sheegnay videoga aan kusoo sheegnay in dufinta ay keento dhibaatooyin badan oo wadnaha ay ku keento maxaa la yeeshay jirka meelihiisa maskaxda ay u horeyso. sidaa darteed waxaa weeyaan qofka oo ilaahay ka baqda waxyaabaha saacido in cortisol uu yaraado waxaa ka mid ah qofka oo ilaahay ka cabsigiisa siyaadiyo iyo khushuuc waxa loo yaqaano. salaada markaad dukanaysid qofka khushuuciisa waxay keenaysaa cortisolkiisana hoos u dhaco. sidaa darteed marka waxaa weeyaan dufintii caloosha hoos ay u dhacaysaa. sidoo kale dadka in maaragta waxaa weeyaan loo sadaqaysto oo wax la siiyo waxay hoos u dhigaysaa cortisolkaaga. sidaa darteed waxaa weeyaan sadaqada aad baxsato iyo waxa aad cuni lahayd oo kala qaybiso oo dad masaakiin ah wax ka siiso waxay keeni doontaa farxad waxay keeni doontaa cortisolkaaga oo yaraado keeni doontaa jirkaaga oo caafimaad qabo. qodobka saddexaad waxaa waaye in ilaahay makhluuqaadkiisa aad ka fikirto sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay sida maaragta waxaa weeyaan sida geela loo abuuray oo kalena ka fikirto ilaahay awoodiisa inaad ka fikirto xeerarkiisa loo abuuray xidigaha sida maaragtay wax ku dhacaysan jirin wax walba ilaahay siduu u qadaray ay u soconayaan. marka inaad ku fikirto waxyaabaha ilaahay uu abuuray oo dhan waxay keenaysaa in cortisolkaagii hoos u dhaco. haddii cortisolkaaga hoos u dhacana waxaan dhahnay waxaa yaraanaya dufinta caloosha kaa gashay. haddii dufinta caloosha yaraatana faa'iidada kale uu qabto waxaa waaye in caafimaadkaagi uu noqdo caafimaad tamaam ah. okay marka qodobka in cortisolka hoos loo dhiga waxaa kaa caawin doono taqwada ilaahay cabsida ilaahay iyo dadka oo maaragtay lagu sadaqeeyo. sidoo kale lagu fikiro lagu tadabburo aayaadka ilaahay calaamadaha ilaahay lagu tadabburo waxay kor u qaadi kartaa waxay hoos u dhigi kartaa cortisolka waxay kor u qaadi kartaa caafimaadkaaga. haddaba ka faa'iidayso qodobka muhiimsan. qodobka 6aad waxaan ku hadlaynaa growth hormone triggers ama waxyaabaha growth hormoneka ziyaadiyo. sidaan wada ognahayba growth hormone uu mas'uul ka yahay korriimada jirka wuxuu hoos u dhigaa cayil. maxaa yeelay markasta oo growth hormonekaaga uu joogsado waa markasta oo cadiintaada iyo dufintaada ay ziyaado. laakiin markasta oo growth hormonekaaga uu bato waa marka korriimada jirkaaga uu ziyaadayo uuna joojinayo kaydka. haddii kaydka uu joogsado korriimaha ayaa soconayo. haddii korriimaha uu joogsadona kaydka badanayo oo kaydka dufinta badanayo cayil badan imaanayo iyo waxyaabaha aan loo baahnayn. sidaa darteed marka waxyaabaha muhiimka waxaa waaye in qofka uu u ziyaado growth hormoneka uu ziyaado. waxaa jira marka waxyaabo kor u qaadayo growth hormoneka iyo waxyaabo hoos u dhigi karo. haddii aan kuwa kasoo bilaawno waxyaabaha growth hormone kor u qaadi karo waxaa ka mid ah cabsida ilaahay tala saarashada ilaahay camalada wanaagsan soomka iyo soo kicitaanka xilli hore iyo salaada leylka uu tukado. waxyaabahaas waxay kor u qaadaan growth hormoneka ay kor u qaadaan qofka korriimadiisana way fiicneeyaan waxay hoos u dhigaan cayilkii iyo waxyaabaha la midka ah. waxyaabaha growth hormoneka hoos u dhigo cayilka badiyo waxaa kowka ah cuntada badan jiifka oo subaxdii ah caajiska cibaado la'aanta ayagana waxay hoos u dhigaan growth hormoneka. haddii growth hormone hoos aadane waxaa dhib ku imaan doonaa caafimaadkii qofka. maxaa yeelay waxaa ziyaadi doono kaydkii oo dufinta waxaa ziyaadi doono caafimaad darro waxaa ziyaadi doono wadnihii oo culays ku imaado